kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Gado oo cirka isku shareertay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe oo kuleelku markan gaaray hanjabaad adagna u diray dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyn ka adkaaday xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo qorshe ay mucaaradku la damacsanayeen filla Soomaaliya oo fashil ku soo dhamaaday wararkii ugu dambeeyay kooxda Amxaarada ee ka dagaalamaysa dalka Itoobiya oo qarka u saaran inay la wareegto caasimadda gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya xilli jamhadu dhinaca kale ay ku sii siqayso magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si ay xukunka uga tuuraan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena intuu hawada ku jiro balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhisi oo kanaalkan subscribe dhe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogihii wararkii ugu dambeeyay oo aan si joogto ah halkan markas ugu soo gudbino aynu ku bilownay maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa hanjabaad ka dambaysa u diray dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dayaysa inay maamul cusub ka dhisto gobolka Gado gaar ahaan xarunta gobolkaasi ee Garbaharey مسؤولين كترسن مامولك جبلان oo la hadlay warbaahinta isla markaana ku hadlayay afka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa si cad waxay u sheegeen in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka shalaay doonto hadii ay soo weerarto gobolka Gado isla markaana ay isku daydo inay halkaasi maamul ka dhisto wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland ayaa waxa uu si cad u sheegay in dawladda Soomaaliya ay carqaladeyn siyaasadeed iyo mid dagaal ka bilowday gobolka Gado isla markaana ay doonayso inay maamul cusub halkaasi ka dhisto waxa uu si gaar ah u weeraray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona ku tilmaamay mid talaadiida isla markaana doonaya inuu kala qaybiyo bulshada Soomaaliyeed waxa uu sheegay in khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland uu sii xogeystay markii uu soo fashilmay heshiiskii u dhaxeeyay dawladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe kaasi oo toddobaadkan gudihiisa ku soo fashilmay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in si buuxda maamulka Jubbaland uga talin doono gobolka Gado isla markaana uu haddana ka talinayo isla markaana aysan jirin waxa markaasi maamul cusub oo halkaasi laga dhisi karo waxa uu sheegay in dadka ku nool gobolka Gado ay dhiseen hal maamul isla markaana ay qasabtaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulkaasi ay la heshiiso oo la jeeda hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Gado ugu magacaaban maamulka Jubbaland Maxamed Xuseen Alqaadi oo la hadlay warbaahinta ayaa isna hanjabaad adag u diray dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Cabdirashiid Janan oo ku eedeeyay inuu qallaaso dagaal ka wado gobolka Gado waxa uu sheegay in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda ay bilowday dagaal qaawan oo ay ku soo qaaday gobolka Gado isla markaana waxa uu dhalanteed tilmaamay maamulka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayso inay ka dhiso magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado waxa uu sidoo kale ku hanjabay in arrin aan laga soo kabsan karin ay ka dhici doonto gobolka Gado hadii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay sii wado qorshaheeda ay doonayso inay maamul cusub uga dhisto gobolka Gado si kastaba hanjabaadan ayaa waxay u muuqataa mid dhinaca Jubbaland ka timid taasi oo ku aadan dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana markasta cabsi xoogan laga qabaa gobolka Gado oo wajahaya xaalado dagaal culus dhinaca kale filla Soomaaliya ayaa mar kale laba jibaartay qorshaheeda ay doonayso inay maamul cusub kaga samayso gobolka Gado gaar ahaan magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado maamulkaas oo noqon doona maamul haysta sharciyada wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya isla markaana ka qayb gali doona shirka golaha wada tashiga qaranka dhawaan ayaa idin soo gudbino xogaha xasaasiga oo laga helo kulan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xubno ka socda gobolka Gado ku dhex maray magaalada Muqdisho gaar ahaan filla Soomaaliya halkaas oo si weyn loogu dharaandhiray maamulkaasi isla markaana la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud amray in wax ka yar 40 cisho guud ahaan lagu gabagabeeyo maamulkaasi isla markaana lagu dhiso sidoo kale maamulkaasi ayaa waxa ay xoga soo baxaya shaaca ka qaadayaan in la isla gartay in madaxweynaha maamulkaasi laga dhigo wasiirka wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya Fartaag kaas oo ka soo jeeday gobolka Gado isla markaana u dhashay beesha Maraxaan dhinaca kale dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa doonaysa in Cabdirashiid Janan oo qayb xoogan ku leh maamulkaasi lagu qanciyo inuu noqdo wasiirka wasaaradda amniga isla markaana lagu bedelo markaasi Fartaag si kastaba xaaladaha gobolka Gado ayaa cakiran waxaana cabsi xoogan laga qabaa dagaalo dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyadoona dhinacyada ku kala sugan doolo iyo sidoo kale badaxaw ay bilaabeen dhaqaaqyo hubaysan oo ay isaga soo horjeedaan
waa dhegeystayaal qodobo kale xasaasi ah ayaa inoo soo socda balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dheh sidoo kale kanaalkan subscribe dheh kana mid noqo saaxiibada halkan ku xirna si aad mar walba u heshid xog iyo wararkii ugu dambeeyay oo halkan si joogto ah ugu soo gudbino. ugu dambeyntiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqday inuu markan si weyn uga itaal roonaaday xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo dhowr jeer laga baajiyay barnaamij ay doonayeen inay ku qabtaan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ayaa xalayto markaasi lagu qanciyay in ay joojiyaan dibadbax ay doonayeen inay ku qabtaan magaalada muqdisho waana markii labaad oo xubnahaani laga baajinayo dibadbax ay ku qabanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasi oo muuqata in aysan xubnaha lahayn wax go'aan rasmi ah oo ku aadan dibadbaxaasi. dibadbaxan ay xubnahani waxay sheegeen inay kaga soo horjeedaan dagaal dhawaan ka dhacay saldhigga degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir halkaas oo dagaal ku dhex maray xubno taabacsan mucaaradka iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya. taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad, taliyaha booliiska Diano iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa xalay la kulmay xubno ka tirsan mucaaradka iyagoona ku qanciyay inay guud ahaanba joojiyaan bannaanbaxaasi waxaana sidoo kale suuragal ah in mucaaradka lagu qanciyo in ay ka tanaasulaan guud ahaanba bannaanbaxaasi si uusan uga dhicin. Fila Soomaaliya ayaa hore u qaaday tallaabooyin istiraatiiji ah oo si weyn loogu markaasi bogaadiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoona qaaday tallaabooyin uu ku kala furfuray xubnaha mucaaradka waxaana ku guuleysay in qayb ka mid ah mucaaradka uu kala jabiyo halka kuwa kalena uu ku qasbo in aysan wax awood ku yeelan gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho isagoona dhawaan amar degdeg ah ku bixiyay inaan waxba lagu qaadan karin gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho. si kastaba haatee xubnaha mucaaradka ee hogaamiye Shariif Sheekh Axmed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa markan u muuqdo kuwa looga itaaroonaday gudaha caasimadda waxaana sidoo kale dhawaan ka fashilmay qorshe ay doonayeen in ay ku hantaan qulubta shacabka Soomaaliyeed balse dhinacooda ku noqday fadeexad xoogan kadib markii ay isku soo saareen dad ay sheegeen in laga barakiciyo guryahooda kuwaas oo ay sheegeen in xitaa ay ku jiraan qaar ka mid ah ehelada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay sheegeen in uu ka barakiciyo guryahoodii. arrintaas ayaana noqotay mid aan raadiyasal lahayn kadib baaritaan dheeraad oo lagu sameeyay iyadoona fadeexad xoogan dhinaca mucaaradka ay ku noqotay arrintaasi halka islahaayeen dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku ceebeeyo oo markaasi ku raadsada shacbiyada. si kastaba haatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda u muuqday inuu xubnaha mucaaradka kaga shacbiyada saameyn badan yahay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana tan arrintan ay laf dhoon gashay ku noqotay dhinaca mucaaradka ayaa heshiisyo kala duwan la soo galay dhinacyada Jubbaland iyo Puntland dhawaan kadib shir ka dhacay magaalada Nairobi balse mucaaradka ilaa hadda hal qorshe ah waa uga fulilayahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo ka mid ah qorshayaashii looga soo dhibay shirkaasi oo ay ajenda ka lahaayeen ka dhan ah Fila Soomaaliya. waa dhegeystayaal ugu dambeyntiina dagaalada ka socday gudaha dalka Itoobiya ayaa cirka isku shareeray iyadoona cabsi xoogan laga qabo in xilka laga tuuro ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo jabhadda Faano oo la soo baxday awood aan caadi ahayn taasi oo ka yaabisay dawladda Itoobiya. kooxda Faano ee Axmaarada ee xagjirka ayaa la wareegtay inta badan gobolka Axmaarada deegaano badan oo ka tirsan waxayna hadda qarka u saaran tahay inay la wareegto magaalada Bahridaar ee xarunta gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya. Faano ayaa bishan gudaheeda waxay soo celisay dhaqaaqyo kala duwan oo caadi ahayn iyadoona dawladda Itoobiya ay ka yaabtay dhaqaaqyadeeda xoogan maadaama ay saldhigyo militari u waaweyn saanad militari iyo sidoo kale hufaradii ka batay iyo maxaabiis ka qabsatay ciidamada militariga Itoobiya. dawladda Itoobiya markaa aragtay awoodda Faano waxa ay eedeyn xoogan u jeedisay dhinaca militariga oo ay sheegtay inay markani iyadu dagaalka si toos ugu jirto isla markaana awoodda ay la soo baxday Faano ay ka badan tahay mid ka dhisan gudaha dalka Itoobiya ayaa waxay sheegtay in gudaheeda qalalaasaha ka taagan iyo jabhadaha taageerada xoogan ka helaya Eritrea ay sababi karto inuu yimaado isku dhac xoogan oo ka yimaada dhinaca Itoobiya iyo weerar lagu qaado dalka Eritrea. warqad ay u gudbeen qaramada midoobay dawladda Itoobiya waxay sheegtay in weerar qaawan ay ku soo qaaday dawladda Eritrea iyadoo taageertay jabhadaha markaasi ka dagaalamaya gudaha Itoobiya si ay xilka uga tuuraan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. dhinaca kale dawladda Eritrea ayaa degtay qorshe siyaasadeed caadi ahayn oo kan aan ahaa dawladda Itoobiya kadib markii madaxda Itoobiya saraakiisha ugu sarreeyay dawladda Itoobiya ay ku hanjabeen in ay weerarayaan isla markaana ay qabsanayaan dekedda casab ee dalka Eritrea waxaana Eritrea ay siyaasadani ku guuleysatay kadib markii ay dawladda Itoobiya ku mashquulisay dagaalada gudaheeda isla markaana taageero xoogan ay u fidisay kooxda TPLF iyo sidoo kale kooxda Faano ee ka dagaalantay gobolka Axmaarada ee dalka Itoobiya.
xaaladaha geeska Afrika ayaa si weyn u kacsan waxaana Etoobiyaanku ay dhowr jeer hanjabaad u direen dhinaca Eritrea taasi oo ku aadan inay qabsan doonaan dekedda Casab oo ay sheegeen in iyagu hore u lahaayeen isla markaana hadda ay yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhawaan ka shalaayay diibitaankii dekedda Casab oo uu sheegay inay dhiibeen madax iyo sidoo kale xubno aan matalaynin shacbiga Etoobiyaanka oo sidoo hadalka u dhigay si kastaba haatee dowladda Ethiopia ayaa hadda markan u muuqata inay lugaha la gashay dagaalo sokeeyo aan caadi ahayn oo kaga imaanaya dhinaca Faano waxaana Faano markan ay la soo baxday awood aan caadi ahayn iyadoona cabsi xoogan laga qabo inay gudaha u gasho caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa isla markaana xukunka ay ka turto ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed dhegeystayaal gudahaan intaas wax ku wararka aad kala socotaan waxay TV fadlan haddii aad ku cusubtahay muuqaalkan like dhis oo kanaalkan subscribe nabadgelyo